طبعا waa ogtihiin bariyahan wixii magaalada Muqdisho ka dhacay iyo xaaladda guud ee dalka waxaan rabaa marka hore inaan ku bilaabo tacsiyada dadkii dhintay iyo dadkii dhaawac ahay dadkii dhintay Ilaahay u naxariisto dadka dhaawacana Allah caafiyo intaas kadib waxaan rabaa dhowrkii maalmood ugu dambeysay runtii magaaladu waxay gashay xaalad aan fiicnayn oo aan aaminsanahay in laga baaqsan karay arrimahaas oo dhanna waa wax la xiriira dawladnimada iyo hanaanka dawladnimada iyo doorashooyinka annaan la xiriira waxaan wada ognahay in xilliga doorashada sida muhiimka ay tahay in la wada og yahay ugu yaraan 6 bilood ka hor sida doorashada u dhacaysa heshiisna lagu yahay arrintaas ma dhicin mar alla marka loo sii dhawaado doorashooyinka aysan jirin wax la isku waafaqsan yahay waxa badanaya tensionka badanaya taasna waxay keeni kartaa dawladnimadu inay meesha ka baxdo ama dhibaato soo gaarto marka aad iyo aad waxaan uga xunnahay in ilaa haddana doorashada sida lagu galaayo aan lagu wada qanacsanayn haddana intii la xali lahaay lagu xaliyay hab dagaal iyo hab ciidan aadaan uga xunnahay waxaan aaminsanahay inay tahay arrin sharciga iyo dawladnimada ka soo horjeeda keeni kartana dalkan meeshii uu ka yimiday ilaahay ma qadaro inuu u laabto waa ka digaynaa marka ka digaynaa waxaan leenahay dawladda waxa looga fadhiyo arrinta doorashooyinka tabashada laga qabo inay xaliso dadka la fariisato waxa doorashada galaya waa dadka murashaxiinta ah doorashadu inay xur ahaato oo xalaal ahaatana waxay khusaysaa dadka Soomaaliyeed dhamaantood mid hadda jooga iyo mid aan jooginba marka doorashadu inay xur ahaato oo xalaal ahaato arrin laga tanaasuli kara ma aha waa arrin qaran maanta haddii la ogolaadana bari soo noqonaysa waxayna keenay qarannimadu inay ku dhamaato meel aan fiicnayn sida wanaagsan waxay ahaaday xilli hore hawshan in la dhameeyo laakiin haddana wali waqtiya la haystaa waxaan ugu yeeraynaa dawladda tabashada laga qabo doorashooyinka gudiyada waxaa lagu eedeeyay koow inay intooda badan ka kala yimaadeen hay'adaha dawladda iyo taageerayaal doorashana looma ogola arrintaas sharcigeena noo yaala diidan arrintaas dawladnimaduna waxay leedahay usus ay ku taagantay ususka koobaad waa sharci marka waxaan rabnaa sharciga in la raaco mucaaradku waxa uu weydiinayo dawladda waxa uu ka rabo doorasho xur ah oo xalaal ah wadiiqadeeda in la maro wax kale oo meesha yaala ma jiraan dadku hadday waayaan xuquuqda ay lahaayeen inay soo banaan baxaan sharciga tilmaamaya waa banaan bixi karaan qofna looma beegsan karo inuu ra'yigiisa sheegay inuu banaanka u soo baxay inuu kulan sameeyay waxay ka mid tahay hanaanka dawladnimada arrinta saddexaad waxa waa ciidamada dawladda ciidamo qaran hadaa maqashid waxay ku dhisan yihiin sharciga ilaaliyaan macnaheeduna waxa waaye dawlad qof kastaba uu og yahay xuquuqda iyo waajibaadka uu leeyahay dalkan wuxuu soo maray dhibaatooyin fara badan oo ciidamadu ay qayb weyn ka ahaayeen burburkii inuu burburo qaranku waxaan rabnaa ciidamadu inaysan ku lug yeelanin arrimaha siyaasiyiinta u dhaxeeya oo ay tahay in siyaasad lagu xaliyo waxaan rabnaa inay ahaadaan ciidamo Soomaaliyeed ay noo wada sinaadaan sidaasay ciidan qaran ku noqon karaan hadday noqon waayaan ma noqonaan ciidan qaran maxaa yeelay sharciga ka leexdeen xaaladda dalka annaga waxaan leenahay meel aan wanaagsanayn ay joogaan iyo looga sii darin xilligan waa xilliga loo baahan yahay in caqliga iyo xigmaddu ay shaqayso wax aa wada hadalku heli karto maxaa keenaya inaa ciidan u soo bixiso oo hadda waa la socoteen shalay yani xaafadan sida ay ahayd maxaa ka jira xaafadan waxa ka jira ma jiraan waxa ka jira war doorashada miiska la soo saaro
waxaan rabaa hal noqdo muhiim ah inaan idiin sheego doorashadan hanaankeeda dowladda kaliya ka shaqeysay cid kale oo kala shaqeysay ma jirto dowladdu waa laba heerka dowladda federaalka iyo heerka dowlad goboleedyada ayagaasaa ka shaqeeyeen annaga waa soo dhaweynay laakiin markii fulintii la gaaray waxaa soo baxay khaladaad waaweyn oo laga aamusi karin annaga murashaxiinaanan muwaxaqaanan u lahayn inaan nidhaahno hanaankan waa khaldan yahay xaqaan u lehna marka waxa aan ka hadlayna waa xuquuqdeenni waana dadka soomaaliyeed dhammaantood wax khuseeya marka dowladdu waxaa la rabaa albaabadeeda inay furto madaxeeda ay furto dowladnimo soomaaliya maanta uguma horreyso ninkii yimidna waa baxaa laga shaka nin kastoo yimaado waa baxaa miithaalna hadda uma baahdinayno waa buuxaan marka annaga waxaan rabnaa kursiga haddii la joogaana nabad iyo sharaf in lagu joogo haddii laga tegaayana nabad iyo sharaf looga tago dadkuna iyaga waa muxaafid iyo mucaarada ay wada joogaan sharcigana ku wada joogaan hadday si kale isu qadari waayaan sharcigana u dhexeeyaan rabnaa aad u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu